بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله صدح إيش كدب ومالك بيش شنو يتبان كذا وحالة دوران دونا مدحوينه أفرت السنة صعدته هجانك وقبل لها سوماليا هالكاس وحا أتاجن هو دوجنا هاي صدني سجال مشرح إن شاء الله متك إلهي وقدرهم باهلي دونه runtii 39kaasi musharax runtii maanta barasho noogu laaban haddii ay berrita qabtaan xukunka waxyaabaha ay qabanayaan iyo sida ay u qabanayaan runtii cid ay maanta ay ka qarsoon tahay ma jirto sababtoo ah aragtidaasi waxay noogu soo sheegeen ololihii doorashada ee dhaaraa iyo maanta qayb ka mid oo 20 musharax ah oo hortagay labada aqal oo ay ku weydiisanayaan codkooda marka bal aan fiirino aragtida iyo caqabada iyo dowladdan hadda xilligeedii maaragtay madaxweynadeedkeedii dhamaaday sida ay u arkeen waxa ay ku fashilmeen iyo isla markaana waxay noo sheegeen sida ay ayagu ay u xallin doonaan haddii la doorto ayna ku noqonaynin waddadii ay dowladdani iyo maaragtay ficiladii iyo dhaqankii ay dowladdani jirtay 5 sano jirtay inaysan ku noqonaynin oo ayagu aysan fashilmayn runtii ka shakhsi ahaan anigu waxaan qabaa qiimeyntoodii maaragtay fashilka dowladdan in maaragtay runtii aysan ahayn qiimeyn dhammaystiran oo ay tahay qayb ka mid ah kaliya ayay sheegeen oo runtii ma ahayn qiimeyn kaamil ah oo buuxda qayb ka mid ah fashilka way sheegeen waan ku raacsanahay laakiin qiimeyntaasi ma aha qiimeyn buuxda oo kaamil ah waxaa kaloo aan runtii ku raacsanayn sida ay ayagana ay mustaqbalka uga taxadarayaan oo aysan u fashilmi doonin dowladda hadda xilligeeda dhammaaday sida ay u fashilantay ay u gudan weyday waajibaadkeeda in aysan ku dhici doonin ayadana runtii kuma raacsanin marka waxaan caddayn doonaa sababaha aan labadaas arrinba aan ugu raacsanayn kow waxaan iri qiimeyntoodii fashilkii dowladdan ay ku qiimeeyeen siday u qiimeeyeen waxaan aaminsanahay in ay qayb ka mid ah kaliya ay sheegeen oo aysan sheegin maaragtay caqabadaha oo macnaha oo dhan inaysan sheegin waa qayb ka mid ah ay sheegeen oo haddii qaybtaas ka mid haddii la xalliyo anigu waxaan aaminsanahay in haddana dowladda soo socota ay fashil noqon doonto waxaan kaloo aan ku raacsanayn xalka ay macnaha ay u arkaan inay ku xallinayaan caqabadahaasi oo ay maaragtay aysan dhici doonin ayaga haddii ay qabtaan inaysan soo noqon doonin fashil dambe runtii qiimeyntooda dhan waxay ku salaysnayd xubin ka mid ah xubinada ay ka kooban tahay dowladda federaalka waxay kaloo ku salaysan tahay shakhsiyaad mas-uul ka ah hay-adda fulinta oo runtii waxay ka tageen dhammaan in ay mas-uuliyadda dowladeed hay-adaha dowladda ay ku kooban tahay iyo dhaqangelinta dastuurka in la wada leeyahay ayay ka tageen oo aysan lahayn hal hay-ad oo ka mid ah dowladda federaalka runtii waxay soo qaateen waxyaabaha ay ku fashilantay dowladda hadda xilligeeda u dhammaaday waxay yiraahdeen waxay ku fashilantay dhamaystirka dastuurka
dowladda federaalka oo muddo dheer soo jiitamaya dastuurkaasi wuxuu maanta u dhammaystirmi laayahay laba qodob oo runtii ah waxyaabaha oo dastuur lagu tilmaami karo oo haddiise labada qodob ay ugu muhiimsan tahay wax la yiraahdo dastuur labadaasni waa midna waa awood qaybsiga midna waxa waaye khayraad qaybsiga runtii waxaa isweydiinta marka mudan awood qaybsiga inna waa la wada ogolyahay waa inta hadda ay ku shaqaynayeen dowladihii maaragtay soo macnaha isdhaxlay midna waa qabyo bal hadda aan fiirino marka awood qaybsigaasi oo macnaha dowladdu ay dastuurka u dhammaystiri weysay shaqooyinkii hadda socdayna aan si habsame ay u socon waayeen saameynta ay uu ku yeeshay aan fiirino iyo cidda leh mas-uuliyadda runtiisaa la socotaan walaalayaalow dastuurkan maanta aan maaragtay dowladda federaalka ay ku dhaqmayso waxaa la qaatay 2004 magaalada Embagati ee dalka Kenya ayaa lagu qaatay runtii waxaa loo kala qaybiyey waxaa la yiri federalismku wuxuu ku dhisan yahay awood qaybsi awoodii maadaama aan la gaarin qof iyo cod awoodii waxaa loo suubiyey dad matala hay-ada matala ayaa loo suubiyey awoodii marka waxaa loo qaybiyey ee dowladdaasi federaalka ay ka koobnaan ku dhaqmi doonto afar ayaa loo qaybiyey awoodii dhaqangelintiina afartaas ayaa la saaray kow waxaa awood gooni ah la siiyey dowladda federaalka oo ah golaha fulinta labo waxaa awood la siiyey golaha shacabka ee aqalka hoose iyo fulinteedii waxaa awood la siiyey iyo fulinteeda aqalka sare waxaa awood la siiyey maamul goboleedyada iyo ku dhaqankeeda marka awoodaha waxaa loo qaybiyey afartaas ayaa loo qaybiyey oo maanta awoodihii dowlad dhexe oo kaliya oo maamusho ma jirto afartooda ayaa maamulo afartooda ayaa iska leh go-aanka dastuurka dowladda federaalka in lagu dhammaystiro oo hal xubin oo ka mid ah dowladda federaalka ah oo maaragtay oo ah maaragtay xubinta maaragtay isha golaha fulinta kaliyeed ma laha haddii ay arrintaas suurtagali weydana golaha fulinta kaliya eedeeda ma laha haddii ay hergashana hergelinteedii lama imaan karto golaha fulinta kaliya ama xubin ka mid ah afartaas kaliya ma laha si wada jir ah ayay macnaha fulinta u wada leeyihiin iyo dhaqangelinta iyo dhammaystirka haddii ay suurtagali weeyana afartooda ayaa mas-uulka ah runtii maaragtay eedaasi oo maaragtay dhammaystir la-aanta dastuurka ay macnaha ay saareen golahaasi fulinta iyo shakhsiyaadka hogaaminaya horta anigu kuma raacsan haddii waxay ballan qaadeen in ay dhammaystiri doonaan maaragtay dastuurka ay dhammaystiri doonaan marka waxaa la rabaa adinku kaliya golaha fulinta ah ma dhammaystiri kartaan haddaa madaxweyne waddankan ka noqotaan waa in ay si wada jir ah afartaasi aan soo sheegay dowladda federaalka labada aqal midka hoose iyo midka sare iyo dowladda federaalka xubnaha dowladda federaalka oo maamul goboleedyada si wada jir ah iyo ogolaasho ah ayaa horta dastuurkaas ugu dhammaystiri karaa marka waxay ahayd inay isweydiiyaan yaa leh mas-uuliyadda ay maaragtay dastuurkan u dhammaystirmi weyda sababta ay su-aashaasi muhiim u tahay waxay tahay berri markay xukunku qabtaan ayaga ayay hortaallaa laakiin hadday yidhaahdaan maaragtay golihii fulinta ayaa fulin waaye ayaga eedda ay saaraan oo keliya oo britain ay macnaha mas-uuliyadda ay wada leeyihiin afartaas aan soo sheegay oo ay yidhaahdo say ku xalinayaan horta waa inay fahmaan dhibaatada waxa ay ka fuli weyda oo dastuurka u dhammaystirmi waaye inay tahay afartaasi
oo la saaray mas-uuliyadda inay dastuurka dhammaystiraan mas-uuliyadda keliya ma saarno golaha fulinta haddii golaha fulinta ay la shaqayn waayaan saddexdaasi dastuurka ma dhammaystirmaayo haddii xubin ka mid a ay diido dastuurka ma dhammaystirmaayo marka waa maaragtay berita haddaa xukunka qabataan caqabadahan ayaa macnaha idiin hor imaanaya dadka aad kala shaqaynaysaan waa dadkan marka haddii aad tidhaahdaan ii sheeg dadkana ka mas-uul ahaa annaga berito haddaan tagno dadkan dad xun ay ahayn annaga waxaan lin karnaa runtii been baad isku sheegaysaan ummaddan aad mas-uulka aad u noqon doontaan been baad u sheegaysaan waxay kale ku eedeeyeen dowladda federaalka macnaha walihii fulinta ku eedeeyeen in ay runtii maaragtay ay gabeen mas-uuliyaddii saarneed iyo waajibaadkii saarneed waxay tusaale usoo qaateen oo ay yidhaahdeen runtii waxay tagrifal ku suubiyeen awooddoodii ayay waxay u adeegsadeen si qaldan awoodo aysan lahaynna way qaateen taasina waxay keentay in uu xiriirkii dowlad goboleedyadii oo xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladdii aysan wax wada shaqayn aysan ka dhexayn golaha fulintaas dhaqankoodii iyo ku tumashadii dastuurka ayaa arrintaasi ka mas-uula annaga haddaan nimaanno arrintaasi waan xallin karnaa oo waxay arrintaas u arkeen dhaqanka macnaha dadkii hoggaanka dowladdaas federaalka u ahaayey in ay macnaha xiriirkaasi xumaaday iyo wada shaqayntaasi xumaatay in ay keliya mas-uul ka yihiin dowladda federaalka runtii aniga arrintaasi waa idinku diidana sababta aan idinku diidanahayna waa idin caddaynaya runtii waxaad la socotaan dowladda xubnaha dowladda federaalka ah oo maamul goboleedyada ah awood ayay leeyihiin fulin ayay leeyihiin haddaba waxaad isweydiisaan qaladka aad kuwan kusoo sheegteen oo runta aan idinku diidanayn awooddoodii iyo fulintoodii ay lahaayeen sidee bay u isticmaaleen waxaan la soconnaa in maamul goboleed walba uu leeyahay baarlamaan inuu leeyahay waxaan ognahay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada in aysan la tashan baarlamaanka in aysan ogolayn in ay la xisaabtamaan waxaan ognahay in maaragtay xuquuqda uu baarlamaankaas iyo shacabka hoos yimaado maamul goboleedkaasi in doorashooyinka marka la qabanayo oo xaq ula leeyahay doorashadaasi in maaragtay ay noqoto mid oo maaragtay matalaad sax ah mid muwaadinka meesha ku nool in uu waxna dooran karo lana dooran karo runtii waxaan ognahay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada sida ay dowladda federaalka ah ay xuquuqaha baarlamaanka iyo muwaadinka dhanka doorashada uga qaadatay ayay maamul goboleedyadan uga qaateen wax hadda maanta ma laha awood baarlamaanka maamul goboleedyada ka jiro waxaa kaloo ognahay in aqalka sare uu matalo maamul goboleedyada oo ugu matalo dowladda federaalka ma ii sheegi kartaan shaqada uu leeyahay aqalka sare maamul goboleedyada weligood ma u daayeen oo ayaga maadaama ay wakiil ka yihiin hadday caqabado yimaadaan iyo hadday baahi ay qabaan yimaadaan weligiin ma aragteen aqalka sare iyo dowladda federaalka oo wada fadhiya oo ka wada hadlaya caqaladaha iyo dhibaatooyinka jira oo ka wada hadlaya oo maamul goboleedyada weligiin ma aragteen maya sababta ah uma ogolo maamul goboleedyada maaragtay xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin aqalka sare maanta wax shaqo uu hayo ma jirto sababta ciddii uu mathalaya
oo dastuuri ahaan u mathalaya oo ahayd maamul goboleedyada madaxdoodii uma ogola inay mathalaan waxaa kaloo aad og tihiin maamul goboleedyada waxay ahayd in awoodooda hoos u dejiyaan ay abuuraan golo deegaan ilaa hadda golo deegaan maxaa loo abuuri la'ya oo awooddii loo sii dejin la'ya haddaba marka awoodda ay maamul goboleedyada madaxdooda haystaan iyo dhaqangelinta fulinta ay haystaan oo dastuuriga u ogolaanaya sida ay dowladda federaalka ah oo macnaha oo maaragtay golaha fulinta oo Soomaaliya ay ugu xadgudubtay ayagana sidaas ay ugu xadgudbeen macnaha haddii aad saxdid dowladda federaalka kaliya macnaheeda ma aha hal inaa Soomaaliya u hesho waxaa kaloo isweydiin leh aqalka hoose xuquuq ayuu leeyahay awood buu leeyahay fulin buu leeyahay awooddaas uu ku fushanayo wax xiriir awoodaheeda waxaad aqalka hoose u diiday dowladda federaalkana way u diiday maamul goboleedyadana way u diideen aqalka sare xuquuqaheeda dastuuriyeed waxaa u diiday aqalka hoose ayaa u diiday runtii markaa fiirisid afarta la siiyey awoodaha iyo fulinta ay ku kooban tahay dowladda federaalka ah cid kale boobis iyo u doodis xuquuqdooda dastuuriyeed ayaa ku dhisan ayadoo aan la wada xallinin dhammaantood oo aan loo arkin hal keliya ma ah dhammaantood la wada xallin horta xal ma imaanayo laakiin idinka waxaa xoogga saarteen ii sheeg golihii fulinta keliya iyo madaxdooda inuu qaladka ka jiro haddii ayaga la saxana in wax walba ay saxmayaan runtii taasi sidaas darteed waxaan idinku diidana sidaad u aragteen dhibaatada isaa xalku u aragteen waxa weeye qodob ka mid ah qodobadan idinku diidana waxaa soo haray qaybtaas waxay ahayd qaybtii maaragtay dastuurka oo macnaha qeexaya awoodihii la kala lahaa iyo maaragtay dadkii qaban lahaa xilkaasi doorashadooda iyo xuquuqda iyo shacabka ay lahaayeen marka bal aan u gudubno waajibaadka labaad ee dowladda federaalka oo ay runtii ay ku fashilantay kaasi oo ah dhisidda haykaladii dowladeed dowladda sideeda waxaa lagu tilmaami karaa marka ay leedahay haykaladan haddii aysan haysan haykaladan dowlad laguma tilmaami karo sidaas ayaa ilaa maanta maaragtay qoladan internationalka ay noo kaalmaysaa hay-adahaasi runtii aragtida lagu dhisaayo iyo qaabka lagu macnaha lagu dhaqangelinayo iyo dhaqaalaha lagu bixinayo intaba ma ahan ii sheeg wax runtii maaragtay dowladda federaalka ay leedahay ma aha waayo dowlad dhisidda waxaa naga kaalmay international community nimanka la yirahdo marka tiirarka marka dowladda federaalka oo ay dowlad ku noqon karto oo haykaladaas ay ku dhisan karo waxaa ka mid ah amniga aan tusaale soo qaadan horta intaan amniga la dhisin waxaa la dhisayaa maadaama ay dowladdii ay hubkii ay gacanta ugu jirin dadan dowladda ahayn ay gacanta ugu jiraan sidee hubkii maaragtay dadkaasi oo ahayn dowladda hubkii looga soo celin karaa marka waxaa jirta falsafad oo international community ay dejiyeen oo ay leeyihiin dadkan aan ahayn dowladda sidee hubka looga soo celin karaa marka saddex arrin ayay ku tilmaameen in hubka dadkaasi looga soo celin karo sababta ninkan hubka wuxuu u wataa in uu maaragtay waa shaqada kaliya oo maaragtay wax ku raadsan karo oo maaragtay noloshiisu ku maareyn karo marka sidaas darteed waa in laga maaragtay laga dhigaa hubka marka saddex
dariiq ayay international community wadamada maaragtay oo macnaha oo failgaroobay oo ama Soomaaliya iyo Congo iyo South Sudan iyo Yemen iyo Iraq iyo Afghanistan ay ugu talagaleen inay jirto koo waxay yiraahdeen in dadka hubka haysto loo subi wax la yiraahdo dhaqan celin isla markaasna la baro xirfadahaasi oo macnaha u saamixi doonta in ay abuurtaan shaqooyin oo markaas ay noloshooda ay ku maareeyaan waa qodob kale waxay tahay in maaragtay ayagii laga mid dhigo maaragtay laamihii amniga oo ayaga ay ka mid noqdaan dadkaas saddex in aan wada hadal lala gelin oo lala dagaalamo oo hubka laga soo qaado Soomaaliya markaa fiiriso midii hore lagu maaragtay fikirkaasi laguma dhaqin labadii fikir oo dambe oo ahayd in maaragtay dadka hubka haysta oo ah qabiilada Soomaaliya ay ka koobneed in ayaga laga dhigo laamihii amniga oo booliiskii militarigii nabad sugidii asluubtii ayaga laga dhigo runtii taasi waxaa ka yimid fashil ayaa ka yimid maanta waad ogtihiin gobolkan Banaadir oo kaliya ay dowladda ka taliso 17 degmo ayuu ka kooban yahay 17 degmaba qabiilo ayaa maamula qabiil walba meesha u badan yahay ayaga asaga ka ah gudoomiye asaga ayaa ka gudoomiye waa qabiilkaas ciidanku waa qabiilkaas ayaga maamula marka maba noqon karaanba ciidan dowladeed iskuma arkaan 17 degmaba waxaa kaloo jirto in ciidanka militariga ah oo maanta dhisan inay qabiilka yihiin ayaguna ciidan qaadan ma noqon karaan oo macnaha qabiil walba waxaa la yiri hubkaagii baabuurtaadii iyo dadkaagii si gooni ayaa meel loo dejiyay maanta marka maba noqon karaanba ciidan qaran oo isdhexgal ma jirto taasi waa qaab dhismeedkii macnaha ay u mareen maaragtay dowladda federaalka ah oo nidaamkaasi qaab dhismeedka ciidan qaran ku dhismaya runtii waxay ciidan qaran maysan dhiirigelin waxay sii dhiirigeliyeen oo runtii ay sii naaxiyeen qabiilka ay sii naaxiyeen ciidanka qabiilada ay sii naaxiyeen oo ciidan qaran ma aha soo fikirkaasina macnaha waxa waaye runtii in aad loo qiimeeyo waay labo ciidankani dowladaha shisheeye ee tababara runtii waan ognahay dowlado badan oo kala gagadisan hadday Turkiya noqon lahayd hadday noqon lahayd Imaaraadka noqon lahayd hadday Mareykanka noqon lahayd hadday noqon lahayd ciidamadan Afrikaanka ay noqon lahayd hadday European Unionka noqon lahayd hadday Qatar noqon lahayd hadday Ethiopia noqon lahayd intaba waxay tababareen ciidankaasi runtii ma ahan ciidan qaran runtii waxay ku shaqeeyaan hadafka iyo maaragtay aragtida dowladahaasi tababartay ayay ku shaqeeyaan ayaga ayaa mushaarka siiyo marka umaba dhisno hadaf ciidan qaran oo Soomaaliyeed uma dhisno labada arrin dartood ayaa waxaa loo laayahay ciidan qaran oo dhismo marka muhiimadda waxa waa in la fiiriyo haddaan Soomaali nahayna qaabka aan ciidankeena ku dhisayno oo fikradda international community nooga timid oo ayna qabiiladii aan macnaha ciidan ka dhigno qaabkaan u marayno iyo kuwan internationalka uu dhahayo waa ciidanka idin tababaraynaa kadibna ayagana bedelayna qaabka ay yihiin fikir ahaan iyo dhaqangeli ahaan inaan fiirino oo in uu yahay qaab ciidan qaran ku dhismi karto iyo inay yihiin mid aysan ku dhismi karin in runtii polisiyadaas la eego aad ay muhiim u tahay fashilku waxa laga yaabaa waa run dowladda federaalka hadda xilligeeda dhammaan inuu fashilku ka yimid laakiin in meeshaas yar aad ka aragtaan kaliya ma ahane inaad waxay ahayd qiimaysaan qodobadan anigu hadda aan soo sheegay qodobka labaad oo asna ugu muhiimsan haykalada dowladda waa macnaha dhaqaalahana runtii waa labo in la abuuro ila dhaqaaladu hadda aan jirin maadaama oo loo baahan yahay baahida dowladda iyo baahida shacabka ay sii badanayso runtiina ay jirto
iyo in la kobciyo ama la ballaariyo ilaha dhaqaalaha ay jiray. haddii ay noqon lahaayeen ilaha dhaqaalaha jira waa dekadihii, waa eerbooradii, oo maanta wax kaliya oo jiro taas waa. si haddii dhaqaalahaasi oo kobcinta iyo abuuristaba waxaa laga faa'iidayaa in ay dowladdaasi noqoto dowlad madax bannaan dhaqaalaheeda oo cid oo international community ay isku tiirsanayn. runtii iyadan dowladda federaalka hadda xilligeeda dhammaaday way ku fashilantay, run waa ogolnahay, laakiin ayagu keligood ma aha wax ku fashil. dhibaatada meesha keliya kamaysan imaan. waa inaad fiirisaan maanta dekadihii iyo eerbooradii jiray yaa gacanta ku haya. hadda fadhiga dowladda federaalka oo ah gobolkan banaadir, labadii keliya ila dhaqaaleed oo jiray waxaa gacanta ku haya dowlad shisheeye oo Turkiga ayaa gacanta ku haysa. hadday eerboorka noqon lahayd iyo hadday dekada noqon lahayd. markaad fiiriso Puntland waad la socotaan in ay dekadii heshiis la gashay maaragtay Imaaraadka oo shirkad oo Imaaraadka ah. eerboorkeeda waa la socotaan in ay maaragtay dowladda carab ah sidaas oo kale ay ugu dhiseen. xitaa marka dowladdii federaalka ahaa oo ay shaqadeeda ay tahay inay waxna abuuraan, kuwii jirayna inay kobciyaan, wax abuuris iska daayay, kuwii jiray ayaa xataa waxaa maamulo dowlado shisheeye oo waxba gacanta uguma jiraan. iyadana waxay ahayd oo waana laku aamini la'yahay, ama ha ka timaado annaga oo is aamini la oo macnaha oon waxna maamuli karin, ama ha ahaato si dhaqaalahayna loo kobciyo international community-ga inay leeyihiin maadaama idinka aad maaragtay aadan ahayn dad is aaminsan, dad macnaha aan runtii ka daacad ay tahay waddankooda inay horumariyaan, in ay shirkadahan nagula taliyaan. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah heshiiskan dekadda maaragtay 2014 ayaa la galay. muddo adiga 30 sano ayaa la siiyey shirkadda maamusha. runtii waxaa dib cusboonaysiin lagu suubiyey 2020 ayaa lagu suubiyey. heshiiskan waxaa lagu kala saxiixday Turkiga lagu kala saxiixday. runtii nuqulka heshiiska lagu heshiiyey waxaa ka soo shaqeeyeen looyaro oo degan Ingiriiska oo ay lacagtooda bixiyeen, iskala shaqeeyeen qodobadii IMF iyo World Bank. heshiiskaasna oo Turkiga lala galay ay maaragtay mas'uul ka ahayd IMF iyo World Bank. marka intaas oo dhan waxay ku tusaysaa xitaa maaragtay kobcintii dhaqaalaha iyo abuuristii inaan lagu aaminin. waxa kale ay ku tusaysaa waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah, waxaad tirahdeen inay dowladdu ayaduna ay ku fashilantay adeega bulshada inay u adeegto. waa run. hadda adeega maanta jira aan fiirino yaa u adeega bulshada. adeega bulshada waxaa la yidhahdaa caafimaadka, waxbarashada ayaa la yidhahdaa, iyo abuurista shaqooyinka aan ku darno adeega waay. hadda yaa u adeega. haddaan fiirino caafimaadka, yaa iskale isbitaalada ugu badan maaragtay ama gobolka banaadir ha noqoto ama maamul goboleedyada ha ahaado, yaa iskale. waxaa iskale shakhsiyaad ganacsata oo Soomaaliyeed ayaa iskale. ayaga ayaa macnaha suubinooya adeegii bulshada oo lacag ah. laakiin haddaad fiiriso waxbarashada, iskuulaadka waddankan ku yaal oo dhan yaa iskale. shakhsiyaad ganacsata ah ayaa iskale oo lacag dadka ka qaada, ayaga adeegii fulinaya. yaa iskale jaamacadaha waddankan, waxaa iskale shakhsiyaad ganacsata ah oo fulinaya adeeg. intaba waxay ku tusaysaa mas-uuliyaddii adeega bulshada in ay runtii
ay qaateen dad ganacsata oo Soomaaliyeed oo intaasoo sanana intaysan dowladda jirinna ayaga ay hayeen maantana ay hayaan oo ayagii ay adeegaasi ay suubinayaan laakiin dhibka jira waxay tahay maadaama ay dadkan uu yahay dad sabool ah lacagtii inay awoodi waayaan marka waxay ahayd inay dowladda arrimahaasi ay ka kaalmayso adeega oo ay macnaha waajibaadka ay ku lahayd inay fuliso maysa fulin waxyaabaha la yaab kale ah waxaa ka sii mid ah adeegii bulshada dowladda federaalka oo intaasoo sano soo jirtay in ay adeega bulshada maanta ay waxba ku lahayn marka xataa iska daa dadkan Soomaaliyeed oo ganacsatada ah dowlad aan ahayn dowlad Soomaaliyeed oo ajnabi ah ayaa waxay u fidisaa adeeg dadka Soomaaliyeed oo kaga badanba dowladda federaalka dowladdaasi oo ah Turkiga markaad fiiriso adeega caafimaadka isbitaalada ayaga gacanta qaarkood ku haya marka fiiriso waxbarashada iskuulaadka qaarkood ayaga ayaa gacanaha ku haya oo maanta dowlad Turki ayaaba waxa adeegii bulshada ayaa bixiso oo macnaha dowladda federaalka xabad kuma laha ayaguna dhibaatadoodu waxay tahay shacabkii maadaama ay yihiin shacab sabool ah lacag ayay ka qaadaan ayadana way macnaha runtii way ku fashilantay dowladda marka waxaa loo baahan yahay in meesha kaliya aad ka eegteen oo arrinka ah in hadday ahaan lahayd dhisidda hay-adaha dowladda iyo hadday ahaan lahaayeen arrimaha dastuuriga ah heshiiska shacab heshiiska siyaasadeed awood qaybsiga matalaadda doorashada waxaasoo dhan waxaad macnaha eedeedii saarteen oo aad haddii ay iyadaasna la xaliyo oo idinkaa diyaar u tihiin inaad xalinaysaan in uu xalka Soomaaliya uu macnaha uu dhammaanayo uu hirgalayo gabagabo waxaan kusoo gabagabaynayaa runtii aragtidiinaas sidaad maanta u qiimayseen dhibaatada iyo sida aad u aragteen inaad ku xalisaan runtii waa mid u dhammaan doono sida hadda dowladda fashilantay inaad u fashilan doontaan sababta ah arrintu qiimayntiinii ayaa runtii ahayd qiimayn hal il isku haysato ayay ahayd hal il bay isku haysatay labada il waxay arki karaan hal il ma arki karto halkaas ilna waxaad ku fiirinaysaan golaha fulinta kaliya runtii ma aha indhaha fura way ka ballaaranta qodobadaas idiin sheegay ayadoo xal loo helin dhammaantood haddaadan helin fashilka ay dowladdan ku dhammaata ayay ninkaas madaxweynaha noqdo ku dhammaan doonaa waxaa taasoo kale caddeyn idiin sii ah shalay ninka maanta xukunka haya madaxweynaha hadda haya maxamed cabdullaahi farmaajo shalay xukuumaddii ka horreysay eedeynta maanta idinka aad ku eedeynaysaan ayuu idinku eedeynaya kursiga maanta wuu fariistay muxuu keenay waaba idinka sii daray maxay ku tusaysaa in eedeynta aysan golaha fulinta keliya iyo shakhsiyaadka aysan lahayn xasan sheekh waxaa ka horreeyey madaxweyne sheekh shariif axmed isagana eedeyntaasi ayuu ku eedeynayay maalintuu kursigu fariistay muxuu keenay isagana wuu fashilmay marka maxaa diidaya sababta qiimayntaasi soo socotay maaragtay 12 sano soo socotay aad wax ku qiimeynaysay ayaa haddana ku qiimeysan maxaa diidaya wadada ay mareen inaad mari doontiin waxa weli nasiib xumo si ah in aad musharaxiinta ay ka mid yihiin qaar leh khibradda aad maanta ku faanaysa leena khibrad ayaan leenahay waaba ogtihiine maxaa in aad berrina fashil ku dhammaan doontaan shalay aad fashil ka soo aragteene maxaad aragtidiina aad u weyneyn weydeen aad microscope u saari weydeen oo macnaha dhankaas kaliya hashaas ila fulinta kaliya u arkaysaan runtii waa nasiib xumo arrintan maaragtay sida hadda
ololihiina ka muuqato iyo ka hortagiinii maaragtay maanta 11 ay ahayd baarlamaanka aad u hortagteen labada aqal runtii kama muuqato dad dhab u fahmay caqabadaha jira dad dhab u fahmay sida lagu xalinayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa haddii xataa qof sidaan lagu doorto qodobada aan soo sheegay Soomaali way ka buuxaan dad way arka garanaya maaragtay dhibaatooyinkan jiro garanaya sida lagu xalinayo in aad raadsataan oo aad la fariistaan ajenda la timaadaan xataa haddii fikirkan iyo dhaqangelintan oo international community leeyahay iyo dhaqangelintan haddii uusan xal u ahayn ummaddan aniga ma nihin laboratory ma nihin shaybaar ma nihin shacabaan nahay in wax badanaa lagu soo tijaabiyo wuu shaqayn waaye inaan nahan wuu shaqayn waaye oo annaga aan la nimaan xalqeen waa muhiim inaan la timaadaan geesnimadaas waa aad raadsataan waa daraasad ku subisaan cid alla cid idinku kaalmeynaysa ama ha noqdaan dadka aad u xulataan ama dad ka baxsan xukuumaddiina ay noqoto inaad si wada jir ah arrintaani loo xalliyo ayaa loo baahan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير أيادين رجينا إن شاء الله كوي ماركتي إن شاء الله هدي أي مانتي أي قفتي بالرساء وحسه دون الله ذكره